بسم الله الرحمن الرحيم نبض إذا الكيمبا ميرور باجوكتان مقعيقو وحاند علي قوليد قدوميها iyo afhayeenka hay'adda badqabka suxufiyiinta Soomaaliyeed Safe Reporters of Somalia SRS maanta waxaan rabaa inaan halkan kaga hadlo dhowr qodob oo ku saabsan xaaladda ay ku shaqeeyaan suxufiyiinta Soomaaliyeed si gaar ah aan u soo koobo toddobaad gudihiisa magaalada Muqdisho toddobaad gudihiisa waxaa lagu xiray in ka badan 10 suxufi oo ka howlgala magaalada Muqdisho laga soo bilaabo 11kii March 12kii 15kii 17 ilaa iyo maanta aynu joogno oo ay taariikhdu ku beegan tahay 18 March sanadka 2026 runtii waa tiradii ugu badneed muddo toddobaad gudihiisa oo lagu xiro magaalada Muqdisho waxaa intaaba nooga sii daran waxaa xilli habeen loo dhacay gabar lagu magacaabo Iqra Cabdullaahi oo ka shaqeysa warbaahinta 5 ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho caasimada dalka xilli habeen ayaa la baxay sida ay ku dhacday booliisku waxaan ka rabnaa inay baaritaan ay sameeyaan oo arintan ay cadeeyaan hadii waaran loo haysto iyo hadii aan loo haysanba gabadhan iyo gabar lagu magacaabo Amiras Saleebaan oo ka tirsan kaab iyadana shalay baa lagu xiray saldhig ku yaala degmada Daynile ee magaalada Muqdisho qalabkii kaab waa uu maqan yahay si gaar ah memorial ayaa ka maqan qalabkii kale waa la soo siiyay labadan gabdhood way isla xirnaayeen xilli galab ayaa la soo daayay habeenkii markay Iqra timid gurigeeda ayaa laga kaxeystay halkaas ayaa markaasi laga xiray oo lagu xiray sida xogta aan ku hayno degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir maamulka Xamar Jajab dhowr mar ayaa telefoonka ka wacnay ma aan heleelin inaan telefoonka kula hadalno si aan arinta gabadhaas xog aan ugu ogaano marka hore gabadha waa in la sii daayaa si shuruud la'aan ah in loo sii daayo lana baaraa sababta keentay in xilli habeen ah gabadhaas loo dhaco oo gurigeeda laga kaxeysto taasna aad baan ugu xunnahay waan wax nagu cusub een 11kaas in ka badan suxufiyiintaas ee magaalada Muqdisho lagu xiray gabdha ayaa ku jira oo la xiray oo ay booliisku ay xireen waxa ku jirta Anis Haqroor waxa ku jirta Iqra waxa ku jirta Amira saddex gabdhood ayaa kamid ah tirada aan sheegayno toddobaad gudihiisa in lagu xiray magaalada Muqdisho marka kororka xiritaanka maalin walba waa u socdaa 11 12 14 15 16 sida ayuu u socdaa waana markii ugu horeysay oo toddobaad intaan la eg suxufiyiin lagu xiro magaalada Muqdisho dhinaca galmudug xariga isagana waa uu sii socdaa waxaa xalay degmada Dhuusmareeb ciidanka booliisku ay ku xireen Cabdullaahi Cabduqaadir Nuur oo kamid ah suxufiyiinta ka howlgala magaalada Dhuusmareeb galmudug waxaa u muuqata inay soo xiriirsanayso kaalintii ay ku jirtay Somaliland meelaha ugu badan iyo Muqdisho ay ahaayeen haddase galmudug gaar ahaan Dhuusmareeb xariga suxufiyiintu waa uu sii socdaa dhowr jeer ayayna talaabooyin noocan oo kala galmudug laga soo calaamadeeyay xabsiga ayuu ku xiran yahay xaaladiisa aad baa looga soo dareenayaa suxufiyiin ku sugan Dhuusmareeb oo aan la hadalnay waxay SRS u xaqiijiyeen in xaaladda suxufigaas aad ay u liidato saadaraadii waxaan dalbanaynaa suxufigaasina in ooda laga qaado oo la sii daayo maamulka galmudug waxaan uga fadhinaa joojinta tacdiyada ka dhanka ah suxufiyiinta oo hadda aad ugu soo kordhaya galmudug Somaliland ayaa aad loogu xiri jiray suxufiyiinta oo kaalimaha koowaad iyo labaad ku jirta hadda galmudug ayaa muuqata in kaalimaha kale ay soo cariirsanayso marka galmudug waxaan leenahay waa in laga tigdoonaada ama laga baaqsadaa xariga joogtada ee suxufiyiinta Soomaaliyeed dhinaca dawladda federaalka Soomaaliya waxaan rabnaa iyadana inay baaritaan ku sameyso inta la eg toddobaad gudihiisa lagu xiro magaalada Muqdisho qalabkooda la qaato waxa ugu yar aan sheegi karno oo hadda gacanta booliisku uu ku jiro waa memory card qiimihiisu uu joogo $28 booliisku laga soo qaadi waayay dadaalka soo la sameeyay iyo waxa kale oo soo kordhay waxa waaye in suxufiyiinta markay duubaan muuqaalada laga tirtiro ama memory cardka laga qaato ayaa soo kortay iyagana inta muddo saacado kooban la haysto la sii daayo tiradan aan sheegayno saacado kooban ayaa la haystay la sii daayay qaarkood memoryashooda ayaa la haystaa qaarkood waxa laga ceeriyay goobihii ay ku duwanayeen muuqaalada gaar ahaan aragtida dadweynaha si gaar ah degmada Hodan gaar ahaan Taleex ayay wariyaashu hadda qaati ay ka taagayeen ma tagi karaan oo halkaas ciidamo dharcad iyo ciidan booliis ayaa jooga oo qofkii suxufi ah qabanaya arintaasna way soo korortay waxaan rabnaa dawladda federaalka Soomaaliya in il gaar ay ku hayso maamulada warbaahintana waa in marka suxufiyiinta la xiro ay dabagal ay sameeyaan oo raadiyaan oo xogtooda ogaadaan ku dadaalaan sidii loo sii deyn lahaa suxufiyiinta sida joogtada ah loo xirayo
aad ayaad umahadsantihiin waxaan rajaynaynaa in baaqa aan dirayno ee ah in suxufiyiinta la xaq dhooro xasaanadooda la ilaaliyo isla markaana laga baaqsado wax kastoo keeni kara xarigooda waxaan diyaar u nahay haddii eeda ay jiraan in si sharcigu waafaqsan yahay aan uga hadalno aan uga garbaxno laakiin hadda waxaa noo muuqanaysa sifo aan sharci ahayn ayaa noo muuqanayso wixii sharci anaga ma diidanin suxufiyiintan waan ku wargelinaa waan u sheegnaa inay ilaaliyaan aysan ka bixin xayndaabka saxaafadda Soomaaliyeed ama xeerarka saxaafadda guud ahaan marka waxaan ugu baaqaynaa dawladda inay baaritaan degdeg ay ku sameyso iqra sababta keentay in xilli habeen ah lala baxo sidoo kale memory card oo warbaahintu ay leedahay ama qalab warbaahintu ay leedahay la soo celiyo aad iyo aad umahadsantihiin